بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa halka isugu yimi labadii gole ee khaatimo golihii baarlamaanka iyo golihii xukuumadda oo shalay iyo maanta halka shirar ku lahaa howlaha iyagii waa soo afjaranay warbixinna loo baahnaa baanu isa siinay waxaanu kale oo isu tilmaannay sida ugu habboon ee maamulka khaatimo uu ku dhismi lahaa dalkana lagu xoreyn lahaa koritaan dhabana insha Allah uu u muujin lahaa dhinaca maamul fidinta iyo dhinaca dal xoreyntaba laba saddex qodob baan rabaa midba inaan wax yar ka ilaaho midda ugu horeysa waxa weeye dagaal baan nagu socda dagaalka dadka iyo dhulkan khaatimo Soomaaliya sanaag iyo xayn lagu soo qaadayo awalba waa la ogaa Somaliland dabka la wareegaysa ee geeska Afrika ay hadda tahay xujada ugu weyn ee ka taagan oo haddana aadba moodaa siyaalaha iyo fafaalaha muuqda inayba gacan saar dhaba oo awalba la isku ogaa lagu tuhmayay hadda inayba ka badheedheen oo urursanayaan xagjir badan oo lagu yiqiin geeska Afrikana lagaga warhayay in Hargeysa iyo Burco lagu ururinayo waxay Somaliland iyo xagjirkaas u damacsan yihiin waxaan u malaynayaa ee ugu weyni annaku awalba afar faataxa nooma soo diraynin waana warkoodana waa haynaa waana isu diyaarinaynaa laakiin geeska Afrika iyo adduun weynahaba waxaan la socodsiinaynaa arrinta laga soo maleegayo Hargeysa in ay xasiloonida aagan duulimaad ku tahay inay tahay in meel looga soo wada jeesto oo waa aragnaa meediada Western World ku adduunka reer galbeedku inay si fiican arrimaha uga hadlayaan annana iyadoo intaa kaba sii tafaasiil dheer baanu haynaa waa laga filayay waa caalwaannimo ka muuqata Hargeysa arrintaa waxalaala waxay noogu kacaysaba waa isu diyaarinaynaa waddanka iyagana waa ka saaraynaa waa xoreysanaynaa markaas ka bacdi wixii nabad rabana diyaar baanu u nahay in nabad laga wada hadlo